qaar ka mid ah dhalinyarada waxgaradka iyo waliba odayaasha ka soo jeeda dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ee ku dhaqan magaalada Hargeysa oo kulan maanta ku yeeshay magaalada Hargeysa ayaa waxa ay sheegeen in tabasho kasta oo ka jirta deegaankooda lagu dhameyn karo safiskii la isla qaatay waxaana shacab iyo xukuumadba ay ugu baaqeen ra'iisul wasaaraha dalkaasi Itoobiya Dr. Abiy Ahmed in la cafiyo madaxweynihii hore dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Cabdi Maxamuud Cumar iyagoona hambaliyay xukuumadda cusub ee ka dhalatay dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya waliba madaxweynaha Mustafa Cagjar inagoo ka kooban dad jaaliyada qoomiyadda ee Soomaalida Itoobiya kamid ah halkan waxaan ka baahinaynaa ama aynu ka soo jeedinaynaa talo iyo dardaaran iyo cafisintaba deegaanka cusub ee deegaanka Soomaalida Itoobiya dawladda cusub ee ka hana qaaday ee laga dhisay ayaan aad u taageersanahay xukuumaddaas oo kamid ah xukuumaddii dalkanaga ay weey waxaan leenahay waan soo dhaweynaa hambalyaanu leenahay dawlad deegaanka Soomaalida muddadii ay dhisnayd waxay soo bartay marxal badan ay soo martay oo kala duwan runtii horumar aad loo taaban karaa ayuu sameeyay madaxweynihii hore dhibaato badan oo gaboodfad iyo waxyaabo badan lana wala tirsanaya marka anagoo raacayna hadaba hadalkii ra'iisul wasaaraha cusub ee dawladda Itoobiya waxaan codsanaynaa in la raaco talaabadii ra'iisul wasaaruhu soo jeediyay taasoo ahayd in la iscafiyo haddii ay ka maarmi weydo in maxkamad la saaro madaxweynihii hore deegaanka Soomaalida waxaan codsanaynaa in lagu saaro deegaanka Soomaalida Itoobiya gudaheeda anagoo ah jaaliyada dawlad deegaanka Itoobiya afgeedii ku hadlayna oo ka hadlayna maanta waxaanu hambalyeynaa isbedelka ka dhacay dawlad deegaanka Itoobiya waxaanu hambalyeynaa kaanka cusub ee ka dhashay ee ra'iisul wasaaraha Abiy ka madaxda yahay waanu hambalyeynaa waxa kale oo hambalyeynaa maamulka cusub ee dawlad deegaanka dal Soomaalidu waxa tiraahdaa hiirtaayo xusuusta walaalba xidhiisho waxba wixii dhacay hore alladii faasfaad baan leenahay waxyaalo badan baa dawlad deegaanka Itoobiya kilarka shanaad ka dhacay haday dulmi tahay haday wax riixi tahay waxyaalo badan baa la tirsanaya kaanka cusub waxaanu ka rajaynaynaa oo nu ka sugaynaa wixii hore u dhacay waxyaalo lagu bedelo ka quruxsan in meesha lagu bedelo annagoo ah shacabka dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya oo taageersanahay iyo dawladda cusub oo hogaaminayo Mustafa kan waxaanu ka taageeraynaa oo aan ka bogaadinaynaa dawladda cusub ee kilalka Itoobiya dawlad deegaanka Itoobiya ee kala dhisay iyo ra'iisul wasaaraha federaalka dawladda Itoobiya madaxweynihii hore ee dawlad deegaanka Itoobiya Cabdi Maxamuud Cumar nin muslina meesha madaxweyne ka hawl buu hayay inkastoo hawl hayana kifna waa laga tirsadaa dheefna waa laga tirsadaa cid badan baa wax ka tirsataa cid badan baa maartay hawshu la gashaado ay dhibku ku dhacaa hadii wax la qabanayo waa in dhibna dhacdaa dheefina timaada sidaa darteed haddii dhibaatooyin badan ay ka dhaceen amba laga tirsanayo waa qof islaamnimada darteed haddii la saamaxayo oo saamax la soo jeediyay oo ra'iisul wasaaruhu soo jeediyay waxaanu leenahay Cabdi Maxamuud Cumarna saamaxa lagu daro hal la cafiyo Cabdirashiid Cabdi Wahaab Xuseen Universal TV Hargeysa.